2 casho ayuu noo socday shir aan la lahayn bankiga horumarinta Afrika oo ay ka socdeen guddi qiimeynayay inay arkaan waxaynu qabanay sanadahan aan soo dhaafnay gaar ahaan mashruuca SMP-ga ayay mashquul ku ahayeen taasoo loogu talagalsan yahay shir dhici doona bisha dambe February aanu la yeelan doono hay'adaha caalamka ee ugu horeeyaan World Bank iyo IMF halkaasoo lagala shir doono arrintii dayn cafinta ee muddada soo socotay marka waxay doonayeen inay ogaadaan heerka arrintaas ay nala taagan tahay si ay uga qayb qaataan gacan inay ka siiyaan Soomaaliya halkii ay soo marteen ay arkaan Soomaaliyana wixii adduunka ugu deeqi lahaa ee halkaa ka ogaadaan waxaa ka mid ah in ay bal ogaadaan 3 sano dambe arrimaha dayn cafinta waxaa ku jira barnaamij dheer oo ah qaab maamulka loo maamulo maaliyadda daahfurnaanteeda sida shuruudihii ay IMF iyo World Bank ay u dhigeen Soomaaliya loo maray iyo si daahfuran ba ay u arkaanba qaabka ay ku shaqayso wasaaradda maaliyadda oo ay aad ugu qanceen runtii meelo aysan filaynin inaanu soo gaarsiinay ayna ku qanceen marka waxaanu filaynaa warbixin fiican inay la tagi doonaan insha Allah